الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى. الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى. ونحت قلوبهم لنحوه فمن عظيم شانه لم تحوه. ونحت قلوبهم لنحوه فمن عظيم شانه أشربت معنى ضمير الشان فأعربت في الحال بالألحان. وأشربت معنى ضمير الشان فأعربت في الحال بالألحان. والصلاة مع السلام اللائق على النبي أفصح الخلائق. والصلاة مع السلام اللائق على النبي محمد والآل والأصحاب من أتقنوا القرآن بالإعراب. محمد والآل والأصحاب من أتقنوا القرآن بالإعراب. هد فاعلم أنه لما اقتصر جل الورى على الكلام المختصر. بعد فاعلم أنه لما اقتصر جل الورى على وانا مطلوبا شد طلبي من الورى حفظ لسان العربي. وكان مطلوبا نشد طلبي من الورى حفظ لسان يفهم معاني القرآن وسنة الدقيقة المعاني. يفهم معاني القرآن وسنة الدقيقة المعاني. نحو لا أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لن يفهما. ونحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه. وكان خير كتبه الصغيرة كراسة لطيفة شهيرة. كان غير كتبه صغيرا كراسة لطيفة شهيرة. دربها وعجمها والروم ألفها الحبر بن أجرومي. بعربها وعودها والروم ألفها العبور والعجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة شرف الدين العمريدي رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى. الحمد مهد لله إلهي أي سغناتي الذي الله سوقد حقيقة وفق وافجيه خير خلقه مخلوقي سنبي يقو خير كبدنا صلى الله عليه وسلم للعلم وللتقى. علمي يا الله كعبسي وافجيه الله أيام مهد إسكال. الحمد مهد لله إلهي أي سغناتي الذي الله سوقد حقيقة وفق هو إلهي وافجيه للعلم علمك وافجيه خير خلقه. قد وفق وافجيه خير خلقه مخلوقي سنبي يقو خير كبدنا صلى الله عليه وسلم للعلم وللتقى. علمك يا الله كعبسك وافجيه. شيخ رحمه الله تعالى بعدما كتاب كيسي وكب اللابي بسملة هدنا وحو شيخ كتاب كيسي مرلباد وهدنا كب اللابي حمدلة لأنه شيخ وحو عمل فلي حديثكي نبي صلى الله عليه وسلم النبي كيري كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر. نبي صلى الله عليه وسلم وحو يري arrin kasta ee muhim ah ee aan lagu bilaabin alxamdu lilaah waa arrin abtar uu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam. abtarkana sidii shalay baanu ku soo fasirnay ay naaqisulbaraka waa mid barakadiisu ay nusqaanu ku jirto oo barakadiisu aysan dhammaystirnayn. si marka sheekha kitaabkiisu mubaarag uu u noqdo ayuu sheekhu haddana wuxuu ku bilaabay kitaabkiisii alxamdu lilaah. xamdiga markaa tacriifkiisa waxaa lagu qeexaa xamdi waxaa la yidhaahaa الثناء باللسان على المحمود لما فيه من صفاته الحميدة
xamdi waxaa la yidhaha aلhanaaءu biالlisaan waa in carabka qof laga ammaano carabka in qof laga ammaano calى اlmaxmuudi shay maxmuud oo wanaagsan oo la ammaanayo in carabka laga ammaano lima fiihi min sifaatihi almaxmuuda waxa ku dhex sugan oo tilmaamihiisa wanaagsanna lagu ammaanayo kaasa waxaa la yidhaha xamdi الhanaaءu biالlisaani calى اlmaxmuudi lima fiihi min sifaatihi almaxmuuda waa carabka in laga ammaano calى اlmaxmuudi yacni qof loo mahad celinayo wanaagsan maxaana qofkaas loo ammaanay lima fiihi waxa ku dhex sugan oo min sifaatihi اlmaxmuuda tilmaamihiisa la mahdiyey ee wanaagsan الhanaaءu biالlisaan la yidhi maxaa baxay الhanaaءu biاlqalbi laa yusamى xamda qofka haddii qalbiga yacni wanaag aada ugu hayso laa yusamى xamda xatىa tatalafada biاlxamd xamdi laguma magacaabayo ilaa aad ku dhawaaqdo xamdigii calى اlmaxmuud la yidhina maxaa baxay calى اla'iim shay maxmuuda oo wanaagsan in la ammaano la yidhi maxaa baxay calى اla'iim shay xun haddii aad yacni hadal wanaagsan aad ku sheegto kaasi xamdi lama yidhaaho waxaa la yidhaha waa min baabi اlاstihzaaء waالsukriya jees maalan qof waxaad aragtay fulay ah markaase waxaa tidhi yacni niyow nin geesiyaa taha tiri maa ashadda shajaacataka geesinimo badanida ayaa tiri waana ogta inuu fulayo taasi xamdi lama yidhaho waxaa la yidhaha alاstihzaaء waالsukriya waa sida gaalka markuu naarta galo ilaahay jala jalaaluhu uu ku leeyahay duq inaka anta alcasiizu اlkariim dhadhamiyaa la leeyahay naarta inaka anta alcasiizu اlkariim qof sharaf lahaata oo wanaagsan naarta dhadham walaysa bicasiizin walaa bikariimin bal huwa la'iim wadamiim waana qof liita oo ilaahay caasiyey hadalkaasoo kale marka laysa bixamdi xamdi ma aha marka xamdigu wuxuu iska leeyahay aqsaam iyo arkaan iyo faa'iido intaba xamdigu leeyahy xamdigu wuxuu iska leeyahay arkaantiisa waa xaamid maxmuud maxmuudu bihi maxmuudu calayhi iyo siiqo arkaantaa shanta ah ayuu iska leeyahay xamdi xaamid waxaa la yidhaahaa qofka markaa wax mahdinaya oo wax ammaanaya ayaa waxaa la yidhaha xaamid hadda alxamdu lilaahi kitaabkan yaa ku bilaabay sharafudiin alcamriidi huwa alxaamid sheekha isaga xaamid maxmuudna waxaa la yidhaha qofka loo mahad celinayo wa huwa allahu jala wacala waa ilaahi jala jalaaluhu maxmuudu bihi waxaa la yidhaha shayga sababtiisa aada qofka yani ku ammaanayso ood uga mahad celinayso maxmuudu bihi yaa la yidhi oo markaad alxamdu lilaahi calى اlislaam haddaad tiraahdo alxamdu lilaahi calى اlislaam ilahay waxaan uga mahad celin islaamnimada haddaad tiraahid islaamnimadu maxay noqone maxmuudu bihi waa shayga ilaahay uga mahad celinaysa maxmuudu calayhina waxaa la yidhaha alaathaaru اlmutaratibatu calى الnicam nicmadii ilaahay uu ku siiyey raadadkii aad ka heshay iyo mirihii kaaga dhashay nicmadaas ayaa waxaa la yidhaha maxmuudu calayhi oo maalan islaamnimada haddii ilaahay subxaanahu watacaala uu kugu hanuuniyey islaamnimadii maxaad mirahood ka guratay waxaad ka guratay rida اllaahi tacaala wadukhuulu janna ilaahay ridihiisii aad ka heshay jannadii aad islaamnimadii aad ku gashay miraha ka dhalanayana waxaa la yidhaha maxmuudu calayhi siiqana waxaa la yidhaha lafdiga aad ku hadashay alxamdu lilah alxamdu lilah lafdiga aad adeegsatana waxaa la yidhaha siiqaa la yidhaha siiqo wuxuu kaloo xamdigu iska leeyahay aqsaam xamdigu wuxuu u qeybsamaa 4 qaybood xamdu qadiimin liqadiim wa xamdu xaadiثin lixaadiث
وحمد حادث لقديم وحمد قديم لحادث أفرتاس وقيبسنا حمد قديم لقديم كحمد الله نفسه الله قديمه الله قديم أمهد علي الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون إلهي اسمه هذا علمي إلهي اسمه هذا علمي كاسو حالنا حمد قديم لقديم الله قديمه والله قديمه هدنا السقي يعني اسمه هذا علمي السقي إلهي حمدنا نفتيس حمد قديم لقديم وحمد حادث لحادث قيبت اللواد وحوي حمد حادث لحادث كحمد بعض المخلوقات لبعضهم يعني مخلوق حادثة ومخلوق كلا حادثة أمهد عليي أيها وحال يرى حمد حادث لحادث كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت شمس ولا غربت على رجل أفضل من أبي بكر أبو بكر وأماني النبي صلى الله عليه وسلم عاد عيده ما صور دالته مرة أود عده قف كفضل بدن أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ومدة وحاو فضل بدن النبي مركي لغا سو تاغو صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق أي أبو فضل بدن ما طلعت شمس ولا غربت على رجل أفضل من أبي بكر والرح منا أصور دالته منا أصور دعاده قف كفضل بدن أبو بكر الصديق حمد سبحان الله حمد حادث لحادث مخلوق كله أمانة يوم وحمد حادث لقديم قيبت السدحات وحمد حادث لقديم الدون مخلوقة أيا وحو أمانة يا إلهي جل جلاله محاكم إذا كحمد المصنف وشيخ حمد أسمي إلهي خالق جل جلاله أيو أمانة يا إسوا الدون مخلوقة الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى وشيخ قيبت أقدم بيسه وحمد قديم لحادث الله قديمة أيا وحو أمانة يا مخلوقات كيسا قيبة كمدة محاكم إذا قولك إلهي جل جلاله ويرئو كله إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب نبي الله أيوب إلهي أمان سبحانه وتعالى نبي الله أيوب إلهي محكور جل جلاله إنا وجدناه صابرا وحن أغاني نبي الصبر يدل القادر له إنه يهي نعم العبد وأضع نعم له إنه أواب ومن إلهي مر والبابا صلى الله عليه وسلم كاسن محليرا حمد قديم لحادث وكحمد الله بعد مخلوقاته المخلوقات كيسا قيبة كمدة وإلهي وأمانة جل جلاله وحو حمده اسكالي هاي فائدة يمره لغا قرته أي حمده اسكالي فائدة ديسا وقيد الموجود وسيد المفقود حمدك فائدة سوحوي قيد الموجود نعمدي هذا هيستي وكوسي دبرة وكوسي أتكيا إلهي هذا ما هذا عليسو نعمدي هذا هيستي ويكوسي أتكاني وسيد المفقود نعمة كام غندنا حمدك وكوسا أغاري نعمة هذا هراء هيسنا لئن شكرتم لأزيدنكم إلهي وحر هداد شكرسان وإذين زيادنا نعمة هذا هيستان مركب فائدة الحمد وفائدوينك waxay ka mid tahay xamdiga laga guranayo oo laga helayo alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayaa mahadi u sugnaatay alladii allahaasu alxamdu lilaahi marka laamtan oo lilaahi ku jirta
saddex macno ayaa kuugu bannaan inaad ku macnayso. waxaa kuu bannaan inaad ku macnayso laamu الاkhtisaas ama laamu الاstixqaaq ama laamu اlmulki. saddexda baad ku macnayn kartaa. waxaad ka dhigi kartaa alxamdu lilaahi laamta ku jirta laamu الاkhtisaas ama laamu الاstixqaaq ama laamu اlmulki. ti aad doontaad ka dhig. maxaa loola jeedaa macaanidaas? haddaad tidhaaho laamulmulki aan ka dhigi macnuhu wuxuu noqon alxamdu xamdi lilaahi mamluukun lilaahi. xamdiga milkigiisa ilaaha iska leh laa ligayrihi. ilaahay gayrkiis ma lahane ilaaha xamdiga iska leh. maaliga xamdiga midka iska leh huwa allahu jala jalaaluh, waa ilaahay. haddaad tidhaaho waxaan ka dhigi laamu الاkhtisaas macnuhu wuxuu kuu noqon alxamdu mukhtasun lilaah. xamdigan anigu aan samaynayo ilaahu gaar u yahay, ilaahu khaas u yahay. haddaad tidhaaho waxaan ka dhigi laamu istixqaaq wuxuu noqon alxamdu mustaxaqun, waxaa loo muteestay oo xaq u leh lilaahi ilaaha xaq u leh xamdiga. xamdiga ilaaha xaq u leh. taasuu kuu noqon. marka saddexda macno baad ka fasiri kartaa. waxaa kuu soo haray asha ku jirta alxamdu. alxamdu asha ku jirta. ashaas iyadana waxaa kuu bannaan saddex macno inaad ka macnayso. waxaa kuu bannaan cahdiya. alcahdiya watii kitaabkeennii mutamim alajrumiya aan kusoo baranay. alcahdiya. alcahdiya maxay noqon? cahdi wax laysla ogyahayo macnuhu wuxuu noqon marka alxamdu xamdigii laysla ogaa lilaahi ilaahu u sugnaaday. oo xamdigaas laysla ogaa muxuu ahaa aلhanaaءu bالlisaan calى اlmaxmuud lima fiihi min sifaatihi almaxmuuda. xamdigaas cajaa'ibta le ilaaha iskale. kii machuudkaayo laysla yaqiinay ilaaha iskale. waxaa kaloo kuu banaan inaad ka dhigtid istiqraaqu اlafraad. istiqraaqu alafraad yani afraad waxaa loola jeedaa aqsaam اlxamd. xamdiga qaybihiisa oo dhan inaad soo wada koobayso. waxaad leedahay alxamdu xamdiga qaybihiisa oo dhan lilahi ilaah iskale. aqsaam alxamdi oo dhan ilaahu ku dhammaan jala jalaaluh. waxaa kaloo kuu bannaan inaad ka dhigto istiqraaq. waxaan leeyahay jinsi. istiqraaq waan sheegnay. aljinsiya. aljinsiya. alxamdu jinsu اlxamdi. xamdiga jinsigiisu jinsiguu doona ha noqdo lilaahi ilaahu u sugnaaday. marka meesha maxaa kaaga imanaya 9 mas'alo min darbi 3 fi 3. saddexaad saddex ku dhufan. maxaa yeelay asha waxaanu nihi saddex macnood ku fasiri kartaa. lilaahi laamka ku jirana saddex macno. marka 3 fi 3 ay kuu noqon. saddex lagu dhuftay 9 mas'alaa kaaga soo baxaya. alxamdu lilah. shaarixuna wuu kuu tilmaamay. shaarixa الشhaykh الcalaama ibraahim الbayjuuri wuu kuu tilmaamay isagu waa ka ku dhahaya alxamdu lilah ay mukhtasun waa markii laam الاkhtisaas laga dhigo ow mustaxaqun waa markii istixqaaq laga dhigo ow mamluukun waa markii laamta laga dhigo laam اlmulki. falaamu wuxuu ku yihi lilاkhtisaas aw lilاstixqaaq aw lilmulki. وعلى كل mid walbo saddexda masألة ka mida faal asha oo alxamdu ku jirta ima liljinsi wa ima liلاstiqraaq aw lilcahdi. faاlاxtimaalaatu suurtagalyaalka masaa'ilka suurtagal meesha ka waa 9 9 qaa'imatun 9kaasoo ka imanaysa oo ka istaagaysa min darbi 3 fi 3 saddex lagu dhufto oo ka imanaysa maaragta saddex lagu waa 9kaas mas'alo 9kaas mas'alo ayaa ku imanaya. waaya alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayaa mahad u sugnaatay aladii allahaasoo qad xaqiiqee wafaqa huwa damiirka ilaahay u laaban. qad xaqiiqee wafaqa huwa ilaahay waafajiyey. wafaqaa saasaa inoo qoran hadda kitaabka. aliftaas waxaa la yidhaha alifu lishbaac. alifu lishbaac ayaa la yidhaha yani jii'at biha lidaruurati الshicr. aliftaas waxaa meesha loo keenay gabaygiyaa u baahan. ilaa waxaa weeye gabaygan baxrurajas weeye kitaabku hadda uu ku socdo
meesha uu ku dhammaanayo yacni gabaygu waa inuu meesha beytka shadrigiisa horena ku dhammaado hadda beytka aakhirkiisa fiiri lilcilmi khayra khalqihi walituqaa alif taaganu ku dhammaanayo kan waa inuu alif taagan ku dhammaado qad wafaqaa lituqaa fiiri hadda beytka ku xigana fiiri xataa naxat quluubuhum linaxwihi min cadiimi shanihi lam taxwihi hi ku dhammaanayo shadriga meesha ku dhammaado kan labaadna waa inuu ku dhammaado waa qaanuun ay yaqaanaan yani caruudiyiinta ay yaqaanaan nidaam u degsan fanni walba nidaam u leeyahy nidaamkiisa in la ilaaliyo alladii allahaasoo qad wafaqa waafajiyey khayra khalqihi makhluuqiisa nabigii ugu khayrka badnaa salى اllahu عalayhi wasalam lilcilmi walituqa isku cadfan yihiin khayra khalqihi waa mafcuulu bihi oo soo kale dhex galay bayna almacduufi wاlmacduufi calayhi macduufkii kii wax lagu cadfeeyey oo ah walituqaa iyo macduufu calayhigii oo lilcilmi ah uu sheekhu wuxuu soo kala dhex geliyey mafcuulu bihiyuu soo kala dhex geliyey alladii allahaasoo qad wafaqa khayra khalqihi makhluuqiisa nabiga ugu khayr badnaa salى اllahu عalayhi wasalam lilcilmi walituqaa waafajiyey يعني شيخة وإشارة إلى فضيلة العلم ومزيته عند الله إشارة إلى فضيلة العلم ومزيته عند الله وحكو إشاري علمك سيدا إلهي أكتس قالي وويها إنه قالي هاي وحكو تسنيا نبينا إلهي سبحانه وتعالى ويري وقل ربي زدني علما وقل وحاتر يا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ربي زدني علما إله علمي إزياد ساكد عيسى النبي صلى الله عليه وسلم marka wixii nabi ilaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo khayru khalqihi ku ducayso la yiri oo wax maqaam weyn ilaahay agtiisa ka jooga maqaam weyn ilaahay agtiisa wax ka jooga qad wafaqa waafajiyey khayra khalqihi lilcilmi walituqa cilmiga alla ka cabsi waafajiyey khayra khalqihi limaada sheekhu muxuu isugu cadfay cilmigii ayuu wuxuu ku cadfay walituqa ishaaratan إلى أنهما متلازمان وحكو إشاري وحال الدوني علم يتقوى هذا إن يسن كالهري هذا العلم هاي لازم وإن هذا متقط هاي هذا إلهي كعب سنس إنما يخشى الله من عباده العلماء إلهي ردتك أهل العلم وأهل ربنا إلهي كبقان ردتك أهل العلم لأنه يقع إلهي قرنا سبحانه وتعالى إلهي يقع قرنا وحا إلهي سبحانه وتعالى وحق إليه يقع قرنا marka muxuu isugu cadfay sheekha xigmada ku jirta lilcilmi walituqa muxuu isugu cadfay ishaaratan ilaa ana alcilma waltaqwa mutalaazima islaazima waana waxbaan baran oo cilmiyan iska baran oo alla ka cabsina ma jiro sida cawaamtu ay u dhaqmaan oo kale iyo dadka wax magaratada sida isaga dhaqmaan isaga dhaqmi aw cilmigaas wuxuu noqonayaa cilmi oo naar iyo cara ilaahay mooyee wax kale aadan ka faa'iideeyay dad caalim tahay طaalib cilmi ay tahay laazim waa inaad muttaqi noqoto socodkaaga joogidaada hadalkaaga dhaqankaaga usluubkaaga anshaxaaga waa in lagu soo hanuuno oo dadka ay ku hanuunaan ahlu cilmi haddaa tahay xataa naxat quluubuhum linaxwihi famin cadiimi sha'nihi lam taxwihi xataa intii ayaa cilmiga ilaahay waafajiyey xataa xaggee ku tacalujinaynaa wafaqa xataa intii uu cilmiga ilaahay waafajiyey naxat quluubuhum quluubu اlkhalqi makhluuqa quluubtoodii ay u iilatay linaxwihi ilaahay dhinaciisii dhinacii ilaahay dadkii aadeen markay cilmigii barteen lianna alcilma yuxabibuka ilى اllah cilmigu ilaahay ku jeclaysiina maxabada ilaahay kugu soo dhacaysa cilmiga mahma aad wax sii barataba waxaa kuu sii kordhaya maxabat ullah xataa intii cilmiga ilaahay waafajiyey naxad quluubuhum dadka quluubtoodii ay u iilatay linaxwihi naxwillaah ilaahay xaggiisa quluubtii ay aaday quluubta halkaasay u iilatay markii cilmigii la waafajiyey laakiin marka sheekhu muxuu kugu ishaaray kullama isdadta cilman laabudda an tasdada maxabatan lilah mar walboo cilmi aad siyaasatid waxaa laga maarmaana laabudda أن تزداد محبة لله مر والبو علم وكوكر دبا وإن محبة إلهي جعلك إلهي يعبادك وسي كررت
haddii kale cilmigaagu waa cilmi غayru naafic cilmiga waxba tarayn waa cilmi daari famin cadiimi sha'nihi liأjli cadiimi sha'nihi ilaahay sha'nigiisa weyninkiisa dartiis lam taxwi quluubtii hi ilaahay ma aysan koobin cilman cilmi kuma aysan koobin quluubtii khalqigu ilaahay cilmi kuma koobi karaa sheekhu wuxuu ku leeyahay raximah اllahu tacaala ayadoo dadkii ahlulcilmiga markii cilmiga la waafajiyey xagga ilaahay ay aadeen quluubtoodii xagga ilaahay ay aadeen oo maxabadii ilaahay ay ku dhacday si kastood ilaahay haddana u jeclaatid ilaahay ma koobi kartid walaa yuxiiطuuna bihi cilma ilahay wuxuu yihi makhluuqu ilaahay kuma koobi karaan cilmi ilahay isagaa cilmi nagu kooba wa an allaha qad axaaطa bikuli shayin cilma ilahay isagaa wax walba cilmi ku koobay khalqigii ilahay markuu ka hadlayana muxuu yidhi walaa yuxiiطuuna bihi cilma makhluuqu ilaahay cilmi kuma koobi karaan marka aayaddaasuu sheekhu ishaariyo wuxuu ku leeyahay famin cadiimi sha'nihi lam taxwihi liأjli cadiimi sha'nihi ilaahay sha'nigiisa weyninkiisa dartiis lam taxwi quluubtii waa quluubu اlkhalqi quluubulkhalqigii ma aysan koobin hi ilaahay cilman cilmi kuma aysan koobin qof ilahay cilmi ku koobi isagaa ilahay ku kooba lakiin adiga ilahay ma koobi kartid ilahay adiga ma koobi kartid faushribat macnaa damiiri الsha'ni faأcrabat fi اlxaani biاlalxaani faushribat hiya quluubtii wax fahamtay oo cilmigii la waafajiyey waxaa la cabsiiyey macnaa damiiri الsha'ni damiiru sha'niga macnihiisii ayaa la cabsiiyey faacrabat hiya quluubtii marka waxay caddaysay fi lxaani dukaanka dhexdiisii waxay ka caddaysay bilalxaani codad markii maxabadii ay heshay quluubtii waa codaysay marka faushribat hiya quluubtii waxaa la cabsiiyey macnaa damiiri sha'ni damiiru sha'niga macnihiisii ayaa la cabsiiyey dadka quluubtooda yani sheekha ulajeedada uu hadalkan ka leeyahay waxaa weeye dadkii markii ay cilmigii ay barteen qalbigoodii waxaa ka buuxsamay damiiru sha'niga macnihiisa damiiru sha'ni waa ishaaratan ilaa qowlihi tacaala faclam annahu laa ilaaha ila اllah faclam ogaaw annahu sha'nigu wuxuu yahay laa ilaaha ila اllah ilaahay mooye alla kale inuusan jirin horta sha'nigaas ogaaw sha'nigii la ogaana muxuu yahay waa towxiid ullah ilahay inuu waaxid yahay ogaaw marka damiiru sha'niga macnihiisu muxuu yahay towxiid ullah marka sheekhu wuxuu ku leeyahay faushribat quluubtii waxaa la cabsiiyey macnaa damiiri sha'ni damiiru sha'niga oo ah towxiidullaahi ah damiiru sha'niga towxiidku ishaaraya faclam annahu sha'nigu muxuu yahay waa laa ilaha ila اllah faushribat quluubtii waxaa la cabsiiyey macnaa damiiri sha'ni damiiru sha'niga macnihiisiyaa la cabsiiyey oo towxiidkii ah quluubtii markii cilmigii uu dhex galay maxabatu towxiida ka dhashay towxiidkii jeclaatay faacrabat markaasi quluubtii waxay caddaysay fi lxaani dukaanka dhexdiisa waxay ku caddaysay bilalxaani ay bilaswaati codad qalbigii marka maxabatu towxiid iyo maxabatullaahi markuu qalbigii uu ka buuxsamay quluubtii marka waa iska codaysa quluubta dee waxaa loola jeedaa saaxibulquluub saaxibulquluub baa codaynaya marka saaxiibkii qalbigaas fiican qalbigaas towxiidka iyo maxabatullaahi laga buuxiyey qofkii qalbigaas wanaagsan watay qofkii waa codeeyey waa iska codeeyey alqalbu laa yusawit qalbigu ma codeeyo lakin waxa codaynaya xaqiiqatan wa saaxibu اlqalbi kii saaxibulqalbiyaa codeeyey muxuu isaga codeeyey bimacnaa akara walahija bidikri اllah towxiidkii uu jeclaaday markaasuu dikriga ilaahay isaga mamanaaday marka laa ilaaha ila اllah laa ilaaha ila اllah laa ilaaha ila اllah subxaana allah alxamdu lilah laa ilaaha ila اllah wallahu akbar akara walahija bidikri اllah maxabatullah markii qalbigiisii u degay maanta o dhan dikriga ilaahay qalban wa qaalanban wuxuu ku macaansanaya ilahay magaciisa mirahaasina xaggee ka yimaadeen towfiiq اlcilmi mirahaasoo dhan hadihi الnataa'ij wa hadihi الhimaaru طayiba natajat can اlcilm mirahaas iyo natiijooyinkaas wanaagsan kulligood waxay ka dhasheen cilmiga
cilmiga marka akhiiran wuxuu ku gaarsiinaa maxabat ullah iyo mar walbaba inaad isaga macaansato ilaahay sheegsheegidiisa sheegsheegidda ilaahay inaad ku macaansato ereygan asalkiisa markii hore faacrabat fi lxaani alxaanka asalkiisa wuxuu ahaa sida shaarixu noo sheegayo wahiya xaanuut اlkhamaar xaanuut اlkhamaar yani asalkiisa wuxuu ahaa qofka khamaarka waxaa la yidhaha waa qofka baa'icu اlkhamri waa dukaanka khamrada lagu iibinayo qofka khamrada iibinayo dukaankiisa asalkii luqada xaanka waxaa la dhihi jiray dukaanka khamrada lagu iibiyo marka meesha maxaa loola jeedaa macnaha loola jeeda waxaa weye isticaaro wey da khamro meeshan loolama jeedee acaadana allahu min shaniha ilaahay iyada iyo macaasido dhan allah naga badbaadiye khamro xaqiiqa meesha loolama jeedee waxaa weeye yacni qofka markii dukaan khamro ah qofka faasiqa ah oo ilaahay ka fogaaday dukaan khamraa markuu soo galo oo khamrada uu cabo waa sakhraamaa soo maa baadilkiisa iyo lahwigiisa iyo shaydaannimadiisa uu la sakhraamaa dadka ahlulmaxabaha iyaguna oo ilaahay jecel iyaguna waxay la sakhraamaan towxiidka iyo dikriga ilaahay ay ku tageen iyaguna fayajiduuna min maxabat illaahi akara mima yajiduhu saaxibu lahwi walacib qofka cayaarta iyo balaayada ku sakhraamay ka badan raaxo ah oon u dhoweynkaas oo raaxo shaydaane uu ka heli towxiidka iyo maxabada dikriga ilaahay uu jeceliya markaas maanta o dhan iskaga sakhraami dikriga ilahay iska wado saasaa loola jeeda walidaalika wuxuu dhihi jiray ibraahim ibnu اladham sheekhii la dhihi jiraa wuxuu dhihi jiray low calima اlmuluuku bima naxnu fiihi lajaaladuuna bالsuyuufi low calima اlmuluuku bima naxnu fiihi boqorada iyo siyaasiyiintu hadday ogaan lahaayeen macaanka aan haysanno cibaadada markaan ilaahay caabudayno cibaadada iyo dhadhanka aan haysanno iyo raaxada aan ku jirno hadday ogaan lahaayeen lajaaladuuna bisuyuufi seefay nagula dagaalami lahayen cibaadaday naga kacsan lahayen ka kaca booskiina annagaa fadhiisanayne ka wareega meesha cibaadada ilahay ilaa sirad ku haysataan ilaa sir iyo raaxo iyo macaana meesha taal waana soo weerari lahaayeen siyaasiyiin iyo muluug waana soo weerari lahaayeen hadday ogaan low calima almuluuku bima naxnu fiihi lajaaladuuna bisuyuufi muluugta iyo boqoradu hadday ogaan lahaayeen xaaladda aan ku sugannahay markaan ilaahay caabudayno seefay nagu soo weerari lahaayeen allahna gaarsiiye waa dad maaragta dad tegey dad yacni ka helaya lada iyo macaan xalaawatu طaaca wاliimaan waa wax weyn haddii ilaahay kuu furo ilahay hadduu kuu furo xalaawatu طaaca wاliimaan allahna gaarsiiyo annagu ma anaan gaarine waa sifiraan taagannahay zero laakiin allah dad naga dhigo dad fiican allah naga dhigo marka saasuu dhihi jiray ibraahim ibnu adham low calima almuluuku bima naxnu fiihi lajaaladuuna bisuyuufi seefay nagula dagaalami lahaayeen faacrabat fi lxaani bilalxaani ثuma الصalaaةu maca salaami laa'iqi calى الnabiyi afsaxi اlkhalaa'iqi uma markaa ka bacdi asalaatu naxariistii maca salaamin salaam micigeeda xaalay ahaatay naxariistu salaamkaasoo laa'iqin ee cunan maya calى الnabiyi nabiga dushiisa allah yeelo salى اllahu عalayhi wasalam afsaxi اlkhalaa'iq makhluuqyaalka kii ugu fasaaxada badnaa ahaa sheekhu weli khudbadii iyo hordhicii kitaabkiisa ayuu ku dhex jiraa wuxuu sheekhu inoo soo sheegay waxyaalo culimmadu ay yidhaahaan baraacat اlmaطlab baraacat اlistihlaal wax la yihaahu soo sheegay baraacat اlistihlaal uu ka soo baxay baraacat اlistihlaal yacni an yudkara fi اlkitaabi maa yaduluka calىa maqsuudi اlkitaab waa in kitaabka dhexdiisa lagu sheego waxyaalo ku tusinaya kitaabka ulajeedadiisa kitaabku ma naxwa ma fiqhiya ma tafsiira ma balaaqa ma sarfiya ulajeedada kitaabka wax ku tusinaya in kitaabka bilowgiisa lagu sheego ayaa la yidhaha baraacat اlistihlaal hadda kitaabkan casharkan yarkaa un hadda akrinay qofkii fahmo wuxuu ogaanaa kitaabkan in looga hadlayo naxwo meesha muxuu ka fahmi faucribat macnaa damiir الsha'ni damiir الsha'ni xaggee kale lagu sheegaa
hige kale lagu sheega waxa lagu bartaa naxwaha fiiri haddana xataa naxat quluubuhum linaxwihi fiiri haddana dadka quluubtoodii linaxwihi ilaahay dhinaciisa ay u eelatay lafdu naxwahaasuu ka rabaa meela meesha waxba ugu duugan meesha linaxwihi markuu ku leeyahay macnahaas caadigan uu ula jeedaa laakiin waxbaa meesha ugu aasan waxa meesha ugu aasan waxaa weeye waa inaad fahamtid maqsuudka kitaabka iyo fanniga uu ka hadlay fanniga kitaabka loo alifay inaad fahamtid warra sheekhu markii kitaabkiisii basmalo iyo xamdalo markuu ku bilaabay haddana sheekhu wuxuu ku xijiyey salligii nabigeena salى اllahu عalayhi wasalam imtihaalan biqowlihi tacaala isagoo qowlka ilaahay ku dhaqmayo in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna calى الnabiy yaa ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasallimuu tasliima aayaddaa isagoo ku camal falaya ayuu sheekhu haddana kitaabkiisii bacda albasmala wa bacda alxamdala wuxuu ku bilowday asalaat calaa rasuuli illah inuu nabiga ku saliyo salى اllahu calayhi wasalam wuxuu yihi marka sheekhu uma markaa ka bacdi asalaatu naxariisti mac salaamin asalaa markii la yidhah salaadan maxaa loola jeedaa asalaad ulajeedada laga leeyahay ay raxmatu almaqruunatu bitacdiim waa naxariis lala xiriiriyey weynin atacdiim watawqiir oo nabiga lagu weyneynayo salى اllahu calayhi wasalam uma markaa ka bacdi asalaatu naxariistii mac salaamin nabadgelyo micigeeda xaal ay ahaatay ay taxiyatin wa icdaam salaan iyo weyneyn salaamkaasoo laa'iqin u cunanma bijanaabihi nabiga dhinaciisa u cunanma cala الnabiyi nabiga dushiisa allah yeelo salى اllahu wasalam wbaaraka caleyh cala الnabiyi nabiga dushiisa allah yeelo salى اllahu calayhi wasalam afsaxi اlkhalaa'iq makhluuqyaalka nabiga ugu fasaaxada badnaa ahaa nabigeena salى اllahu calayhi wasalam yacni makhluuqa sifaadka lagu ammaano sifo kasta nabiga salى اllahu calayhi wasalam oo qofba lagu ammaano wuxuu ka gaaray aclaaha sifada meesha ugu sarraysuu ka gaaray makhluuq lagu ammaano hadday fasaaxo tahay hadday cibaado tahay hadday karam tahay juudkii shajaacadii wax walba alqima alculya meesha ugu sarraysa uu ka gaaray nabigu salى اllahu calayh wasalam maxaa yeelay nabigeena salى اllahu calayh wasalam isagaa yihi ana afsaxu man nadaqa bidaadi daad wax ku dhawaaqa anigaa ugu fasaaxo badan uu yihi nabigu salى اllahu calayhi wasalam nabigaa dushiisa allah yeelo muxamedin ah nabigaas nabiyullaahi moxamed ah salى اllahu wasalam wbaaraka calayh oo muxamedintaa marka waxaa kuugu bannaan icraabaad saddexa sida shaarixu noo sheegayo yajuusu fiihi awjuh اlicraab aلhalaaثa saddexdii wejiye wax loo icraabi jira ayaa kuu bannaan uu leeyahy muxamedun muxamedan muxamedin inta way ku bannaantay waa sidii kitaabkii kawaakibka aanu ku soo baranayo muxamedun haddii la yihaaho waxaa weye huwa muxamedun huwa nabiga la ammaanayo lagu salinayo muxamedun haddaad tiraa muxamedin waa bayaanu calى الnabiy nabigaa lagu bayaaninaya muxamedin ilaa nabigu hoos dhigay calى الnabiyi muxamedin ah muxamedan haddaad tiraana acni waxaan ula jeedaa nabigaas aan ku salinayo muxamedan aan ula jeedaa saddexda wajho icraab kuu bannaanta wuxuu yihi sheekhu laakin irasmu laakiin qoraalku laa yusaacidu ma saacidayo annasba kordhiga ilaa calىa dariiqati man yarsumu almansuuba qofkii mansuubka u qorayo dariiqiisa maahane bisuurati اlmarfuuci wاlmajruur marfuuc iyo majruur qofkii sida mansuubka u qora maahane sida kale mansuubku ma saacidayo sida hadda noo qoran uu sheekhu leeyahy ilaa mansuub haddii la qori lahaa meesha maxaa la qori lahaa daalka gadaashiisa alifaa la qori lahaa soo maha marka sida hadda noo qoran iyo nasbaha aan sheegayno ma iswaafaqayaanu ku leeyahy baajuuri ilaa inaan qaadanno madhabka qolo waxaa jirta shay kastoo mansuuba u qoraya calىa suurati almarfuuc walmajruur oo sidii marfuuci majruur loo qoro oo mansuub loo qori qoladaas inaan ku qabsanno madhabkooda mooye nama saacidayo nama taageerayo yuri sheekhu rasmigu nama taageerayo muxamedin ah nabiy llaahi moxamed salى اllahu عalيه wasalam wاlآali wacalى اlآali aalka nebigana dushooda allah yeelo naxariis iyo nabadgelyo aalka nebiga salى اllahu عalayhi wasalam
aalkan lafdigan aal sheekhu wuxuu ku leeyahay shaarixu huwa ismu jamc laa waaxida lahu min aslihi waa ismu jamc laa waaxida lahu mufrad male min lafdihi lafdiga aal mufradkiisii ma jiro mufrad ma laha wa asluhu ereygan aal asalkiisuna wuxuu ahaa awal ka jamalin jamalin awalin awal jama waa faclu ka wada facl bidaliili taskhiirihi calaa uweylin waxaa u daliila in asalkiisu awal ahaa aalka waxaa lagu taskhiiriyaa uweyl uweylaa lagu taskhiiriyaa horena waxaan usoo qaadanay boolasha hadday noo dhuuqsan yihiin التصغير والتكسير يردان الأشياء إلى أصولها التصغير والتكسير يردان الأشياء إلى أصولها يعني تصغيرك إيوه جمع تكسيرك أشياء وحي دب عليان أصول شودي دب عليان لكن إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى مركولية هي أول وأصل كيسوها وعلى مذهب الكسائي وقبصة الشيخ مذهب الكسائي هدو مركا أولها سيئال كوي متحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلبت العلة ألفا حرف العلة مربع هدو شغلين هي أول كيسونا وحرف كهر ريان وكرد هي قلبت العلة ألفا فصار آل ساسو كله لكن مذهب السيبوي وحوي آل كأصل كيسونا وها أهل فقلبت الهاء همزة هذه همزة لو بدل محو نقض مركا ألي نقض لو همزة ومدة الثانية ذا الساكنتها لأنه يعني وجدنا مركا همزة الثانية ذا هالريبة ألي نقض مركا هذه مدة ألي مركو نقض محل سمية ومدة نبدل ثانية الهمزين من كلمة يسكن كآثر وأتمن كألفيه ودهجر ومركو سياسي اللي يرى لو همزة ومدة الثانية ذا أي ساكنتها هذه ماشي أي كوكل مان مدة الثانية ذا هو ساكنة ذا waxaa loo bedelaa xarakada ka horeysa jinsigeeda hadda hamsada thaaniyada xarakada ka horeysa waa fatxo fatxo maxaa ku jinsiya alif alif haduu bedelo waxaa leedahay aal madda nibdil thaaniyan hamsayn min kilmatin yaskun ka aathir wa'tun sheekh maalik uu leeyahay maalik marka labadaas madhaba ku jirta aali markuu sheeg wal aali allah ya wal ashaabi wa ala al ashaabi asxaabta nabiga sallallahu alayhi wasallam ayagana dushooda allah yeelo naxariis iyo nabadgelyo man duul ah aalka iyo asxaabtu duulkaasoo atqanul qur'aana qur'aanka sugay bilicraabi icraabna ku sugay bilicraabi icraabna qur'aanka ku sugay man duul ah aalka iyo asxaabtu duulkaasoo atqanul qur'aana qur'aankii ku sugay bilicraabi icraab ku sugay qur'aanka wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah اllahu tacaala asxaabta nabigeena salى اllahu calayhi wasalam iyo aalkiisuba qur'aanka kariimka ah ayay waxay ku sugeen icraabay ku sugeen ujeedada laga leeyahay waxaa weeye yani qur'aanka waxay ku ilaaliyeen naxwaha iyo icraabkiisa ay ku ilaaliyeen oo qofkii is yihaaha qur'aanka xaraka ama shaqal ka bedel naxwahaasaa lagu ilaalinaya isagoo ilaahayna hore u ballan qaaday inuu kitaabkiisa xafidayo haddana saxaabadii waxay ku ilaalinayeen qur'aankii inay naxwaha icraabkiisa inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun ilaahay jala jalaaluhu wuxuu leeyahay qur'aanka annagaa soo dejinnay annagaana ilaalinayna laakiin waxyaalaha ilaahay ku ilaaliyey oo sababta uga dhigay qur'aanka ilaalintiisa waxaa ka mid a cilmu naxwaha ka mid a waxyaalaha ilahay sabab uga dhigay id lowla alicraabu icraab hadduusan jiri lahayn lam yuclam ilmuraadu muraadka qur'aanka laga leeyahay maba la ogaadeenba hadduusan icraab yani jiri lahayn hadda ka horaa wuxuu sheegay sheekha la yihaaho zamakhshari kitaabkiisa tafsiirka ah ee uu ku magacaabay alkashaaf markuu fasirayey qowlka ilaahay jala jalaaluhu uu yihi yowma nadcuu kula unaasin biimaamihim yowma maalin nadcuu kula unaasin dadkoo dhan aan ugu yeerayno biimaamihim imaamkooda aan ugu yeerayno wuxuu yihi qole aan naxwey sarfi garanayn ayaa waxay ku fasireen uu yihi biimaamihim hooyooyinkooda yowma nadcuu kula unaasin kitaabku wuxuu ku leeyahy alkashaaf la yidhah markuu aayadda fasiray qole wuxuu yihi naxwey aan garanayn iyo sarfi ayaa biimaamihim biummahaatihim ay ku fasireen hooyooyinkooda loogu yeeray
ومركا واحد هين لفظ الإمام وجمع أم أو هوية أيا واحد هين الوحى لو جمعية إمام لو جمعية شيخ مركا وحويري صرفي نحويه سنقران المويه إمام ما لو جمعية أو هوية هذا لو جمعية مركا لا جمعية هذا لو جمعية لكن إمام لو جمعية شيخ مركا وحوي لولا الإعراب لم يعلم المراد إعراب هدوس جيري لهين مراد كولا ولذا سيدا درت الحكية وحال الشيخ أن السبب وضع النحو سببت النحوها اللي ودى جيه وحوها أن عربيا ننهر بادئة أيا قديمة سوق علي في زمن عمر حل سيد عمر وهربادي وسوق علي فقال مركز وهربادي وحوير من يقرئني يا إيه آخرين مما أنزل الله على محمد نبي الله محمد قرآن كإلهي وكسود جيه صلى الله عليه وسلم فأقرأه رجل لنا وحو آخريي براءة سورة براءة يو آخري فقال نكي مركز وحوير أن الله بريء من المشركين ورسوله بالجر يكوير رسولك يهوصلك ورسوله ساسور هذه رسوله اللي هوصلك وخطأ وين كدلنا قف خطر يا كدلنا لأنه رسوله هذه اللي هوصلك هو عطف على المشركين مركز محمود نقول ماشو أن الله بريء من المشركين ورسوله يكبريه خطأ وين خطر بالجر وآخره فقال الأعرابي ننكي هربادي قال العربي فهمي وحوير أو قد بريء من رسوله إلهي من رسولك سكبري نقضيه إن يكون الله بريء من رسوله هدو إلهي رسولك سكبري نقضيه فأنا أبرأ منه أنا كبر إنما بضنه فبلغ عمر وحا قاري مقال الأعرابي هربادي هذا الكيسي فدعاه ننكي وير هربادي وقال يا أعرابي أتبرأ من رسول الله من رسولك الله تكبر النقضيه صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة أعرابي مرة قصدي وقشيكي سيد عمر داني ساسا اللي أخريور ورسوله يعني اللي أخري عدف كنا ساس وكيريور معناها فقال عمر وحوري ليس هكذا يا أعرابي وساس معها آيض فقال وحوري كيف هي يا أمير المؤمنين فقال سيدنا عمر وحوري أن الله بريء من المشركين ورسوله بالرفع فقال الأعرابي وحوري وأنا والله أبرأ مما برئ الله ورسوله منه إلهي رسولك سوحي بري كان نقضين أنا بريان كاه هذا سيد صحدا أساسه معناها سكين لا وحو نقول أن الله بريء إلهي وحو بري كيه من المشركين ورسوله إلهي رسول كيسنا من المشركين أصلا بري كيه تاسي النظام وايا لكن من باب التضفل بل أن التضفل سمينه حقيقة لو وعد في هذا ورسوله هذا وقدنت هاي دوا صبرني وقادر يا بريء أيه يا كلام بريء الوعد فيها لي صح ميا هذا معناه أنا في ريه مركب يمكن عربي أو أخريه وكلام نغني يمكن عربي أو أخريه وكلام نغني يا أن الله بريء إلهي وبر أيه يا بارك الله فيك بك هذا الشيء هذا سؤال كلام ماشي نقول على نيسو بوش كلام نقول إيمانه يا مركب أن الله دم كعتفنا ورسوله وهذا قدين هاي ورسوله صلى الله عليه وسلم مرتوى الصحية هاي لكن هذانا أيوة أنت هاي لو لم يقول لما لكان الحمار فقيها هذان لما لديه وحلا علين لهين المركب فقيه كان نقول يا يعني الله واسم أن لكن محل الابتداء يلا لأنه نواسخ ذا وأن كأن لعل إيه وحا نسخيان أصل كود محوها مبتدوها مركب محل الابتداء يلا سداسا مركب لوغو عطف محل الابتداء ما دام يلا مركب waxay ka dhigan tahay ورسولهنا بريء من المشركين مبتدا عمل ورسولهنا بريء من المشركين لا رسول كيسنا مشركين سو بري كيا اساس حير مركز الشيخ رحمه الله تعالى وبعد فاعلم أنه لما اختصر جل الورى على الكلام المختصر وبعد البسملة والحمدلة
والصلاة والسلام على النبي بسنكي حمدي يصلي يا سلامتي كبعد فاعلم أقو أنه شأني لما وقتي اقتصر أي قابسدين جل الورى مخلوق انتو ذا بدن مركي أي قابسدين على الكلام هذا الكين أي قابسدين هذا الكاسو المختصري السوق قابي وكان حفظ اللسان وكان حفظ اللغة اللسان هنا بمعنى اللغة وكان حفظ اللسان وكان حفظ اللغة اللغة حفظين تيدون أيهاتي لغة سؤال عربي عربي قالوا نسبي مطلوبا لغة عربية إن الحفظية إن لغة وحل الضلبضي أشد الضلب ضلب كمتك وقدران للضلب من الوراء مخلوقنا لقد ضلبي إن يآدوا إلى اللغة العربية جوابك مدو يعني جوابك لما هذا وحنو إيمانا نظمتها نظما بديعا هذا الكاس هو كسر قوانيها ماشي وكريب من دون هالكاس انت كله هذا الكواسيف فران دونا الى ان نظمتها لقى قال وبعد ما ذكر وحي لسو شيء كبعد من البسمله والحمدله والصلاه والسلام فعلم اوغاو انه شأني لما اختصر مركي قابسدين جل الورى مخلوق انتو ذا بدن على الكلام هذا المركي اسغا قابسدين هذا الكاس المختصر اللي سو قابي شيخ وحو كليه انتاس كبعد بني آدمك intii sii badnayd waxay iska jeclaadeen in kutubta iyo hadalka dhamma la soo gaagaabiyo waayahan dambe saas loo batay annaga ka sii darso waa sheekh xilligaas soo dhahay ya hadda waxa weeye qofku muxaadarada haday dheeraato xataa waa laga kala tagi hadalada haday dheeraato sheekh acbaar sii wado waa laga kala tagi dadkii waxay iska jecel yihiin al-kalaam al-mukhtasar ay jecel yihiin kabacdi marka waxay noqotay dadkii yani si mar walbaba diintii loo gaarsiiyo oo xigmadii cilmigii dadkii loo gaarsiiyo dadku marka in hadalkii loo soo gaabiyo maadaama hadalka gaaban ay jecel yihiin hadda waxay noqotay yani wadaadkii markuu wax duubayo kilib hadduu duubayo kilibkaas yarkaa waa inuusan ka badin 10 daqiiqo 15 daqiiqo hadii markii kilibkii la qiyaaso qofku intuu ku dhufto uu arko inuu hal saac bar uu soconayo markan iga dami weli waa war badan yahay dadkii bini aadamka xilligaas uu sheekhu wuxuu dhahayay dadkii waxay iska jeclaystaan al-kalaam al-mukhtasar marka al-kalaam al-mukhtasar maadaama bini aadamkii xilligan ay jeclaystaan uu yiri sheekhu rahimahullahu ta'ala yani kalaam al-mukhtasar maadaama ay jeclaystaan mukhtasar waxa la yiraahdo huwa ma qalla lafduhu wa lam yakthur macnaahu wixii lafdigiisu yar yahay macnihiisu bayuusan badan hadduu doonee wixii macnihiisu lafdigiisu uu yar yahay ayaa mukhtasar marka anigana waxaan ku dadaalay uu leeyahay sheekha kitaab yar oo mukhtasara oo saas u hadal badnayn inaan ana qoro ayaan ku dadaalay وكان ولما كان مركو أهادي حفظ اللسان العربي حفظ اللغة لغة حفظين تيدي مركي أهاد لغة سؤال عربية عربي قالوا نسبي مطلوبا مثل الضلب يمركو أهادي أشد الضلب ضلب كان أقدرا من الورع مخلوقنا لقد ضلبي يعني اللغة العربية إلاليا يقول يا شيخ وحكى له يكلف في كتاب كان هنا قرأ اللغة العربية إلا إلاليا oo la fidiyo oo dadka la fahamsiyo laga dhaadhacsiyo aada shariicada noogu boorisay shariicada ayaa aada noogu boorisay لأن القرآن عربي والسنة عربية وكلام أهل الجنة عربي القرآن كانوا عربي كسعدا سنة النبي صلى الله عليه وسلم عربي كسعتا لغة أهل الجنة هنا وعربي مركب مقاماتك وقوة وين إسلامك اللغة العربية marka luqada carabiga maadaama aad shariicadu ay nooga dalbatay in la ilaaliyo oo la xifdiyo maxaa luqada carabiga la isaga dalbaday kee yafhamu dadku si ay u fahmaan ayaa luqada carabiga la isaga dalbaday in aad loo ilaaliyo macaaniga quraanka macaanidiisa si dadku ay u fahmaan wa sunnati wa macaaniya sunnati sunnada macaanideeda si dadku ay u fahmaan sunnadaas oo daqiiqati macaani macaanideedu ay xeel dheer tahay كي يفهموا سيدتك أي فهمان أي اللغة العربية لو كجدل بدي أدينا يعني أفيدنه معاني القرآن القرآن كمعاني دي سيدتك أي فهمان والسنة ومعاني السنة
sunnada macaanideeda ay dadku u fahmaan sunnadaasoo addaqiiqati اlmacaani macaanideedu ay xeel dheerta sheekhu wuxuu ku leeyahay asbaabta keenaysa luqa alcarabiya in lagu dadaalo waxaa ka mid a laa yufhamu macaani اlqur'aan biduuni luga alcarabiya macaanida qur'aanka maba la fahmi karaba adigoo naxwihii iyo sarfigii aan baran waa tii hadda aanu sheegaynay qisadii zamakshari yowma nadcuu kula unaasin biimaamihim hooyooyinkoodii inay dad ku fasireen inuu kitaabkaasi uu sheegayo waa liqilati macrifatihim binaxwi naxwihii yaa ku yar marka waxaa weeye waa tii hadda qisadii yani sayidina cumar aanu arkaynay naxwaha haddii qofku uusan garanayn inuu wax badan uu hadlaynayo marka macaanidii qur'aanka si loo fahmo ayaa markaas dadkii looga dalbaday inay luqa alcarabiya aad ay ugu dadaalaan aadna ay u bartaan wa macaaniya sunnati sunnada macaanideedana ay u fahmaan sunnadaasoo addaqiiqati almacaani macaanideedu ay xeel dheer tahay sunnada nebiga salى اllahu calayhi wasalam oo macnaheedu aad ka dheer yahay iyadana lama fahmi karo axaadiistii ayadoon luqa alcarabiya iyo naxwihii sarfigii aan la barin walidaalika shaarixu wuxuu ku leeyahay walihaada itafaqa alculamaa culimmadu waxay isku waafaqeen calىa ana cilma naxwi wasiilaة in lagu gaaro lisaa'iri اlculuum culumtoo dhan inuu furo u yahay laa siyamaa mahal male cilmu tafsiiri wاlxadiis cilmiga iyo tafsiirka iyo xadiisku mahalba ma laha fainahu laa yajuusu liaxadin qof uma banaana an yatakalama inuu ka hadlo fii kalaami اllahi warasuulihi ilaahay rasuulkiisa salى اllahu alيه wasalam inuu ka dhex hadlo hadalkoodii xataa yakuuna ilaa uu ahaado muliman mid ku xeel dheeraaday bilcarabiya oo dareen fiican iyo xeel dheeraasho ku leh luqa alcarabiya faqad qaala alasmaciyu cabdulmelik ibnu qurayb alasmaci sheekhii la dhihi jiray cajaa'ib اdunya macruufaة macduuda minha alasmaciyu culimmadu dhihi jireen cajaa'ib اdunya macruufa wamacduuda cajaa'ibta adduunyadu waa waxyaalaha soo maray dunida ee qariibka ah waa wax tirsana l minhaa waxaa ka mid a alasmaci asmaci kaana aayata min aayaati اllaahi fi اlxifd xifdiguu mucjiso ku ahaa asmaci wuxuu saa u fiiriyo horuu ku xafiday saa marku wuxuu u fiiriyo horuu ka xifdinaya wuxuu yihi sheekhaasi asmaci sheekhii la dhihi jiray ina akhwafa maa akhaafu calىa طaalib اlcilm waxyaalaha aan aad uga baqayo qofka daalibulcilmiga idaa lam yacrif naxwa naxwaha hadduusan garanayn an yadkhula inuu dhex galo fii qowli nebi nabiga hadalkiisa inuu dhex galaan ka baqi salى اllahu alيه wasalam man kadaba calaya qofkii been iga sheega mutacamidan xaalu u kasayo falyatabawa haddegoo ha sii diyaarsado maqcadahu makaanu fadhigiisii mina naar uu ka fadhiisan lahaa qofkii aniga been iga sheeguu yihi nabigu salى اllahu alيه wasalam meeshii naarta uu ka fadhiisan lahaa haddaba ha sii diyaarsado yihi nabigu salى اllahu alيه wasalam liannahu nabigu salى اllahu alيه wasalam lam yakun ma ahaan yalxanu inuu laxnin jiray fii maa ruwiya canhu axaadiista nabiga laga wariyey salى اllahu alيه wasalam laxni ma lahayn faidaa laxna fiihi hadduu marka xadiiska qofku uu laxniyo faqad kadaba calayhi calىa rasuuli الlah rasuulka ilaahay ayuu ku been sheegay xadiiska qofka hadduu laxniyo rasuulka ilahay ku been sheegay inaa hadda ka hor laba isku qabsatay xadiis markaasuu wuxuu yihi xadiisu dadku uu cadinayo inamaa jucila اlimaamu liyu'tama bih inamaa jucila اlimaamu liyu'tama bihi imaamka waxaa loo yeelay in lagu daydo oo markuu rukuuco la rukuuco markuu sujuudo la sujuudo markaasaa mid agtiisa fadhiya wuxuu yihi warkadaa sidaas nabigu ma dhihin salى اllahu alيه wasalam inamaa jucila اlimaamu liyu'tamu saas u akri liyu'tamu warkadaa ayuu yihi nabigu sidaas ma dhihina salى اllahu alيه wasalam markaasuu yihi nabigu waa yihi xadiis bukhaari muslim ay wariyeen inuu ninkani beeninahayaa de meeshuu ka shaxayo ninkan meeshuu ka fiirinayo maba islahaba ya shataana maa beyna mushariqin wa mugaribi ya nin bari aadiyo nin waxaa la yihi qoracdhac aadi kala fogaa ya marka ninkan wuxuu yihi bukhaariya muslimaa wariyay adiga waa inkiraysaa xadiis war ma dhihin markii dambaa nin sheekh u dhexdhexaadiyo war soo akri bal waxaad akrinaysa inamaa jucila اlimaamu liyu'tamu bihi warkaas nabigu ma dhihin uu yihi sheekh ninkan waa kaa saxan yahay nabigu sidaa xadiiska uma dhihin nabiga salى اllahu alيه wasalam inamaa jucila اlimaamu liyu'tama allaamu laamukey allaamu laamukey marka taasoo kale imanaysa oo qofkii yani axaadiistii nabiga salى اllahu alيه wasalam isagoo laxninaya inuu haddana yidhah qaala rasuul الlah oo haddana rasuulkii u nisbeeyo taasaan ka baqiyu yihi marka asmaci laxni yani uu ka sameeyo axaadiistii nabiga salى اllahu عalيه wasalam walidaalika imaamu shaafici sheekhan imaamu nawowi la yihaah oo muqadamada majmuuca markuu ka hadlayo taariikhdii tarjamadii imaamu shaafici
wuxuu yihi kaana الإimaamu الshaaficiyu yashtaغil biالluغة الcarabiya 20 caama 20 sano luغة الcarabiya uu ku mashquulsanaa alimaamu shaafici 20 caama idinku waxaa laga yaabaa maanta inaad leedihiin rayta waa nagu dheeraaday majliska naxwaho imisaan meeshan fadhinay horta 20 sano markaad fadhisaan wax sheega haddii ilaahay cumri nagu gaarsiiyo in la gaarayo lama oga imaamu shaafici wuxuu yihi 20 sano uu akhrisanayay luga alcarabiya naxwihii sarfigii mandiqii caruudkii iyo adabkii iyo 20 sano way ku mashquulsanay waxaa dhahaya warkaas imaamu nawowi fii kitaabihi almajmuuc muqadimada majmuuca ayuu ku sheegay والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لن يفهم الله سبحانه وتعالى